عاصمة دبلن tusaale ahaan dadka ku hamiyanaya imaadaan Ireland anigu Europe wadamo badan baan ka soo maray laakiin waxay dhamaantooda ku haminayaan inay halkan yimaadaan qof qaxooti ah ee yimid ee la yiri isdibir orod magaalada gal oo meel alle meel uu tago iyo wax alla wuxuu haystaan in jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku suganahay Ireland caasimada Dublin habeen garabkii mid waxa taagan Yuusuf Hoosow abwaanka bal waxaan wax ka weydiin doonaa wadankan iyo dadka magangelidoonka ah soo dhawaabaan aad baad u baahantahay walaalkay qaali oo ku dhawahay barnaamijka tusaale ahaan dadka ku hamiyanaya imaadaan Ireland ama sharci haystaan ama yeesan haystaan information ka sii walaalkay horta waad mahadsan tahay Dublin horta wadigan arkaya wadigan dhex jooga maanta way anigu Europe wadamo badan baan ka soo maray way sida Greek oo kale waxaan kaloon soo maray Germany Switzerland noloshoodii nolosha dadka Soomaaliyeed ee meesha joogay ku nool yihiin runtii waa nolol aad u qurux badan laakiin waxay dhamaantooda ku haminayaan inay halkan yimaadaan waxyaabaha markaan halka yimid ee iga yaabiyay waxa kamid ah qof qaxooti ah ee yimid ee la yiri isdibir orod magaalada gal oo meel alle meel uu tago iyo wax alla wuxuu haystaan in jiro way runtii midaas ayaa iga yaabisay laakiin halkani positive and negative way leedahay way okay waxaan ka soo qaadanaynaa for example positive keedii way positive keedii waxa weeyaan haddii Europe ta kale ay diidmo ku soo siiso oo warqado diidmo aad ka haysato waxba ay ku siin waayeen oo halka uu la timaado tiraadid aniga meel aan ku hooyday iyo maaragtay sharci midna waan ka soo waayay way ku soo dhaweynayaan haday arkaan cadeymahaas way laakiin negative keedii waxa weeyaan hooy ma jiro halkan dhibaatada weyn waxay tahay markaad adigu halka timaadid dawladdu waxay kooranaysaa isdibir magaalada gal adigu marka waxay noqonaysaa laba haday jeebadaada ay wax ku jiraan oo qarashaad haysato taayina sida dadka dalxiisyaalka oo kale wadanka yimid ee hotel aad degto way oo iska bixiso way oo qof dalxiisa wadanka yimid ee tourista qarash ku bixin lahaa waa inaad sidataa way hadaadan sidan balaahay ku haystay way waxay noqonaysaa inaad kanalada iyo gidaarada oo inaad adigu aad seexato way inkastoo aadan weli aadan arag laakiin kanalka hadaad tagto kanalka meel biyo mareena meel hooso biyo mareena oo centerka magaalada ah oo meel imika yar inoo jirta waxa jirta dad Soomaaliyeed oo dhulka jiifa way ee teendooyin yar maaragtay tentiga yar ee la siiyay hay'addu ay siisay way ee dhulka jiifta ayaa jirta runtii diifta ka muuqatay dhibaatada ka muuqataadan malaysan kareyn negative keedii horta waa noocaas way oo maalmaha kugu horeysa ama bilaha kugu horeeya runtii way dhib badan tahay nolosha inaad adigu aad la qabsato waad nacaysaa waxaad leedahay maxaa ku keenay meeshan way laakiin marka dambe runtii waxa laga yaabaa inay hooy ku siiyaan recommendation ay ku soo diraan oo meelo kaamam ay ku wareejiyaan ayaa dhici karaysa sax waa maybe hatta lama hubo taas way inta ka gadaal waxa laga yaabaa inuu process-kaagu uu bilowdo hadaad adigu cadeymo fara badan ama diidmo lagu soo siiyay ama qof dhibaato badan iyo jirdil loo geystay adigu aad tahay interviewga lagu qancayo kale lagu qanco exactly inkastoo anaga Soomaali nahay interviewgeena aan dhisnay qofba wuxuu doono iska sheegi karayo maaragtay ama u malaynayo inuu wax ku heli karayo sax shaqooyinka dhulkani adaan positive ka aan u noqdo inta badan abada sida Soomaaliyeed ee wadamada kale Europe adigu aad aragtayba waa security ay u badan yihiin absolutely sax 5 bilood iyo 6 bilood qofku markuu joogo warqada shaqada ay u soo diraan 5 bilood markuu joogo wuu xareysan karaa adigu 6 bilood bay ugu soo dhacaysaa deetana wuxuu iska bilaaban karayaa shaqooyinkiisa caadiga way martay hadaad taxi payer adiga aad noqoto aad bilowdo inaad wadankii cashuurta aad bixiso boqolkiiba 90 waxaad ku leedahay wadanka sharci way inay ku siiyaan mar haday warqada shaqada ay ku soo diraan sax oo waxaad leedahay ma aragtay rajo fiican baad leedahay laakiin isku geeyo brother noloshu waxay ka bilaabataa hoy
qofka hadduunan hooy haysan wax kale uu ka fikiri karayo waay inaad ma jirto marka waxaad leedahay dadku markay imaadaan meesha iska dhiibaan qofku warqadu buuxsanaya uu iska noqonaya isaga istabaraya hay-adaaba kulaba isdabir adigu magaalada gal annaga waxa kuma hayne marka dadkii qofkii dhaqaalaha haystaana hotel iyo meelahaas u gelaya jalbu degaya ha iyagu meel ay geenayaan laakiin ma jirto ayagu meel ay geenayaan intee leeg bay qaanaysaa markay ku soo jawaabaan wallahi niyo it depends dad baa jira 3 bilood oo dibad joog ah oonan weli hooy helin dad baa jira 2 bilood dad baa jira bil it depends yani haday u arkaan qofka inuu iska yara liito oo dhinaca caafimaadka oo warqada caafimaad ay wato waxa laga yaabaa inay meel geeyaan ma sha Allah oo meesha ay geynayeen de ma aha de kamwad iska taqaanaa meel qolkiiba waxa lagu degayaa 10 qof 8 qof tendo oo kala day ku geeyaan waxa laga yaabaa inay 5 iyo 10 qof oo kale lagu wada dego oo tandhada marka winterka tahay oo kale exactly winter iyo summer labadaba haday ay kugu soo aadi karaysaa laakiin waa inaad u dulqaadataa dhibaatada dabaylaha jira wadankani Ireland oo xoog uga badan Yurubta kale oo kale صح dabaylo aad iyo aad u daran baa jira halkani marka teendooyinka oo kale dadka jiifa ama la geeyo waxay la kulmayaan dabaylo fara badan jajab fara badan jirkoo ku dildilaaco runtii dabaylaha iyo qabowga meeshan ma kala go'aanba صح marka brother soo dhawo kulay Ireland waa adiga arkaya Soomaalida wadamada kale Yurub joogta ayaan jeclaan lahaa inaan fariin yar u diro way walal haddaad haysato hooy haddaad haysato shaqo haddaad haysato waxbarasho haddaad haysato sharci meeshan ha imaan waxa kale oo aniga aan ka siyaabay waxay tahay qof baa sharci haysta wuxuu ka yimid ama Sweden ama German ama Yurubta kala de sharciidu marka kala qaado sharcigu ma kaweyn baad u jeedaa mise sharciyan adu ma aha anigu dadka sharciyada waaweyn haysta halkan shaqo u yimaadaan way ka shaqaystaan laakiin dadka sharciga yar wata ee travel documentiga halkan way iska dhiibaan oo wuxuu ka soo tagayaa qofka gurigiisu ka soo tagayaa shaqadiisu ka soo tagayaa wixii oo dhan intuu soo dayaco halkan imaanaya oo bilaahoy oo jawaabtu waqti qaadanayso waxa laga yaabaa guri VIP inuu ka soo baxay waxa laga yaabaa marka halka yimaadeen inuu teenda seexdo adar aqli ma waxas sax hadduu ilaahay sharci meel ka siiyay oo noloshaadii caadiga normaalmeedka iska wadato alxamdulillah dhaho meeshaadii joog bisinka halka u qabso bisinka halka u qabo ma fahanteen intaad adigu idoo sharci wato inaad halka timaadid oo guri VIP ka yimid inaad haddana aad dhulka seexato adar waa inkaar waa kadeed ma fahanteen marka waxaan kula talinayaa dhalinyarta Yurub inteedii kala joogta walaalayaal haddaad sharci aad haysato nabadaadii aad qabto iyo hawlahaaga adar halkaas ku imaan haddii kale intaas ka horeysada intaas ku soo koona barnaamijka